wararka ka imanaya dalka Koonfur Afrika ayaa sheegay in halkaasi lagu dilay muwaadin Soomaaliyeed oo halkaasi ku ganacsanayay. Goobjoogayaal ayaa sheegay in dilka uu ka dhacay deegaanka Vilvilib lagu magacaabo oo ku yaala magaalo xeebeedka Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. muwaadinka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Allah u naxariiste Maxamuud Cabdi Cismaan waxaana dilay koox burcad hubaysana kuwaas oo ku dhex toogtay gudaha dukaankiisa oo ku yaala goobaha ugu khatarta badan dhanka burcad beegsatada ee ganacsatada markaasi Soomaaliya beegsata. ciidamo ka tirsan booliska Koonfur Afrika ayaana saacado kadib markaasi tagay goobta lagu dilay marxuumka waxa ayna sheegeen inay wadaan baaritaano la xiriira falkaasi hase yeeshee lama soo warinin cid ay u soo qabteen dilka loo geystay muwaadinka Soomaaliyeed. dilalka loo geysanayo ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool Koonfur Afrika ayaana si aad markaasi u korodhay maalmahan waxaana sanadkan oo kaliya dhacay dhowr dil oo loo geystay dad Soomaali ah oo siyaabo kala duwan markaasi loogu dilay dalkaasi.